habar gidir iyo xasan sheekh laba sano oo gabagaba ah waxaynu aragnaa rag habar gidira oo markii hore duuli jiray dawladda xasan sheekh maxamuud oo maanta mucaarad iyo aflagaadaba la soo taagay dad badan baa marka maskaxdooda waxay geli laadahay sidee ku dhacday habar gidir dawladda xasan sheekh mucaaradaysa sootay ahayd tan kaliya ee dawladda xasan sheekh maxamuud duuli jirtay abwaankooda wariyahooda fanaankooda siyaasigooda marka dadweynuhu waxay leeyihiin cabdullaahi balwaan oo arrintaasi bal ka soo hadal si xaqiiqo ah wax alla iyo wixii noo qarsoonna nala wadaag barnaamijkan marka waxaan ugu magac daray habar gidir iyo xasan sheekh waxaan ku kashifi doonaa sir idinka qarsoon oo ay muhiim tahay maanta inaan shaaca ka qaado maalin ay ka wanaagsan tahay xilligan inaan ka hadlana horta ma bajirtaba sababtoo ah dibadbax looga soo horjeedo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay Saybiyan ciidamadu waxay doonayeen dad shacab oo 30 sano deganaa Saybiyan inay ka soo saaraan dadkii shacabka hana way diideen oo way ka hor yimideen ciidamada waxaynu ku dhawaaqayeen xasan sheekh waa tuug yusuf madaala waa tuug shuute waa tuug jawaahir baarqab waa tuug muhiimadda marka laba sano waxaanu aragnaa kadib mucaarad habar gidir oo bilaabanaya waa laba sano kadib maxay tahay sababta marka waxaan rabaa inaan idinka daba geeyo sirta qarsoon oo arrintaa ku saabsan habar gidir qorsho ayay wadatay dawladda xasan sheekh maxamuudna ka lahayd waana ka shifaya hadal kastoo afkiiga ka soo baxayana cadayno wata adiga idaawanayana marqaatiga noolan kuu qabsanayaa meel ku qoro aragtidaada iyo maskaxdaadana wax alle iyo waxay ku soo saarto qaybta commentiska igu soo qoro ujeedada habar gidir ay ka lahayd xasan sheekh iyo dawladdiisa labada sano ugu horeysa in xasan sheekh albaabada qabiilada kale laga soo xiro oo la go'doomiyo abgaal xasan sheekh oo iska ilaali abgaal waa cadowgaaga xasan sheekh oo marusada ka carar xasan sheekh oo xawaalaha salaamin xasan sheekh oo gaal jecel ka fogow xasan sheekh oo meeshaad ku aragto sheeqaal waaba cadowga kaliya ee taagan ha salaamin madaxweynihii albaabadii hawiye ka soo xireen waa laga gudbay waxaa loo gudbay Soomaalida kale waxa la yiri madaxweyne hartiga waa cadow madaxweyne ma jeerteenka cadow waaye madaxweynihii dhammaa ma jeerteen indhihiisa ma saari karo yaa ku shubay habar gidir madaxweyne dhulbahanta meeshii joogaan cadowkaaga ma sukeeyo madaxweyne ka carar dhulbahante hartigoo dhan waxay uga dhigeen cadow albaabadii hawiyana waa ka soo xireen ujeedada haddaad fahmaysaa marka labada sano ugu horeysa xasan sheekh waxa loogu talagalay dawladdiisa in la go'doomiyo laga soo xiro Soomaaliyo dhan laga dhigo xasan sheekh Soomaali u aaminsan habar gidir kow habar gidir laba habar gidir saddex hadda labadii sano way dhamaanaysaa Soomaa dhilkii koowaad waa lagu guuleystay xasan sheekh waa go'doon qabiil ay isku fiican yihiin ma jiro maantana muqdisho habar gidir dhaxda uga jira kaliya waajibaadkii labada sano hore waa la gudbiyay labada sano dambe marka ujeedadu maxay ahayd labada sano dambe ujeedada habar gidir meesha ugu qoran waxa weeye no more abgaal labada sano soo socota no more abgaal la dooranaya abgaal dambe madaxweyne inuu noqdo ma rabno abgaal madaxweynenimada laga ilaaliyo waa bilaabatay marka no more abgaal hadday bilaabatay waxaad ka garan kartaa in no more abgaal ay bilaabato waxaad ka fahmi kartaa dadka baraha bulshada maanta lagu weerarayo dhammaantood waa abgaal jawaahir baarqab waa abgaal shuute waa abgaal yusuf madaale waa abgaal si fiican u dhageysaa dalkayga lama soo qaadaya marka fiiri dawladda in la wada dhaliilo anigu dood kama qabo laakiin yusuf madaale waa la sheegayaa ku-xigeenkiisa waa habar gidir lama sheegayo xasan sheekh la sheegayaa mahad salaad lama sheegayo maxay mahad salaad waa habar gidir axmed macalin fiqiyo wasiirka arrimaha gudaha lama eedeynayo maxaa lagu leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa dhacaya yusuf madaale yaa waaye abgaal jawaahir baarqab yaa waaye abgaal waa barnaamijkii noomo abgaal marka haddaan ku xasuusiyo waxay noomo abgaal ay karkarinayeen 2016 axmed macalin fiqiba ugu horeeyay dadkii barnaamijkaasi duulinayay ilaa shadhawaashaha dadkan muqdisho degan durbadiiba abgaal way iloobeen barnaamijkii 2016 hadda marka durbaankiiba dib loo cusboonaysiinaya waad aragteen
eedda dowladoo dhan hadday tahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dood kama qabo waxaan sheegayana beenay noqonayaan laakiin waay dowladda looga xulayaa oo keliya kuwa abgaal maxaa loo dhaliili la'yahay guddoomiye ku-xigeenka amniga maxaa yeelay waa nin reer xaaji saleebaana lama dhaliilayo maxaa loo dhaliili waayey taliyaha booliiska gobolka banaadir lama dhaliili karo waa nin habar gidir oo saleebaana maxaa loo dhaliili la'yahay taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya lama dhaliili karo maxaa yeelay waa nin habar gidira maxaa loo dhaliili la'yahay hay-adda nabad sugidda maya mahad waa la mahadiyey maxaa yeelay waa mahad salaad oo habar gidir barnaamijkii noomo abgaala idin bilowday marka intaan haddaad wax ku fahmi weysiin weligiin wax ma fahmi doontaan sidee xal loogu heli karaa xasan sheekh mar hore ayuu go'doon u yahay horta odagu dhaga kala ma laha hadda ka horaa nin xildhibaana magaciisa ma sheegayo wuxuu ka soo jeedaa hawiye wuxuu yidhi xasan sheekh baan rabnay bal inaan tala ka siino ragga qolka ku soo xirtoon dhahno war madaxweyne ummad soomaaliyeed aad madaxweyne u tahay qolka ka soo baxa waana ballamiyuu yidhi marka waxaan sugaynay inuuna qaabilo isagoo keligiis ah haddii aan u tagnay meeshaana mahad salaada fadhiya abshir buqaariya fadhiya axmed macalin fiqiya fadhiya iyo xildhibaan kaloo isna habar gidira markaasuu yidhi walaalayaal soo dhowaada taladu waa taladeenna taladuna waa taladiinna taladeennuna hal dhinacay wada socotaa waa loo qoslay marka see u hadlayaan dadkay rabeen inay kala taliyaan ayaaba dhinac fadhiya wuxuu yidhi madaxweynihii dee arrimo kale oo aan meesha olinaan galgalnay si aan xoogaa uga galgalanno damici aynu lahayn ereyga ugu dambeeya uu yiraa waxa ay ahayd madaxweynaha meeshay gaarsiiyaanba indhihiinaad ku arki doontaan afkay ku ammaaneen inay ku caayaan ninay 9 bilood biilayeen 9 bilood ay biilayeen ayaa maanta aflagaada cad la soo taageen maalin cadoo weeraraya 9 bilood ay hotel ku biilayeen wixii ka bilowdo xilligan waxaa bilaaban doona wejiga labaad qorshihii laga lahaa dowladda xasan sheekh maxamuud habar gidiraan hormuud u ah waxaana la yiraahdaa noomo abgaal anigu waxaan ahay qof runta iftiimiya xaqiiqdana dadka Soomaaliyeed u sheega inaan runta iftiimiyo xaqiiqda sheegan hal ku dhiga uga dhigay habar gidir iyo xasan sheekh hadaad wax fahantay alxamdulillah hadaadan fahmina rabbil caalamiin barnaamijkan mid lamid intaanu ku kulmi doono waa balwaan idin leh nabadgelyo